صوصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان. صوصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان. صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة والأخوات meel kastoo aad dunida ka joogtaanba assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. kusoo dhowaada barnaamijkeennii daawada soonka. daawada soonka barnaamijka aan ugu magac darnay wuxuu ka kooban yahay 20 xalqadood. xalqadani waa midii koobaad. waxaanan ku qaadaa dhigi doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala inaan ka jawaabno 3 su-aalood. su-aasha koobaad waxay tahay soon maxaa la yidhaahdaa, definitionkiisu waa maxay? su-aasha labaadna waxay noqonaysaa soonku ma sidan hadda uu yahay buu weligii ahaa mase heerar kala duwan iyo maraaxil kala duwan buu soo maray? su-aasha saddexaad ee aynu insha allahu ka jawaabi doonno waxay noqonaysaa soonku imise qaybood ayuu u qaybsamaa? haddaynu isku dayno inaynu su-aasha koobaad ka jawaabno, soonka luqadda carabiga waxaa lagu yidhaahdaa ileen diinteennu luqadda carabiga ayay kusoo degtay. soon waxaa la yidhaahdaa al-imsaaku can ishay, shayga oo laga istaago laga afhaysto ayaa waxaa la yidhaahdaa soon la yidhaahdaa. waquulii inii nadartu lilraxmaani faquulii inii nadartu lilraxmaani sawma yuu alle subxaanahu wa tacaala ku yidhi maryamo bintu cimraan. waxaad ku tidhaahdaa waxaan ku nadray oon ku dhaartay inaanan hadlin. idan in hadalka laga istaago oo la hadli waayo waa soon. luqadda carabiga marka soonku waa al-imsaaku can ishay. taasi waa xaggii luqada. xagga sharciga soon maxaa la yidhaahdaa? soon waxaa la yidhaahdaa al-imsaaku can alakli washurbi wasaa'iri almuftiraat maca anniyati min tuluuci alfajri asaadiq ilaa guruubi ashamsi. oo macnaheedu uu yahay waa in laga afhaysto cuntada iyo cabitaanka adiga oo niyad ku daraya. waa goormo xilliga saa la samaynayo? fajarka saadiqa ee midka salaada subax lagu tukada ah laga bilaabo ilaa inta ay qoraxdu ka dhacayso. kaasuu sharciga wuxuu u yaqaanaa soon u yaqaanaa. taasina waxay ahayd su-aashii jawaabtii labaad. su-aasha saddexaad oo ahayd soonku ma sidan hadda uu yahay ayuu weligii ahaa mase heerar kala duwan buu soo maray? jawaabtu waxaa weeye biidni illaah soonku 3 heer oo kala duwan ayuu soo maray. marxaladii koobaad waxay ahayd inuu qofku 3 maalmood ka soomo bil walba iyo maalinta caashuuraa. caashuuraa waa maalinta 10aad ee bisha muxaram. marxaladii labaadna waxay ahayd marxalatu atakhyiir, iyo in qofka la yidhaahdo kala dooro inaad soonto bisha oo dhan iyo in aad maalin walba miskiin quudiso. marxaladaasna waxaa la yidhahdaa marxalatu atakhyiir. oo waxaa qofka la odhanayaa kala dooro bayna asiyaami wa bayna aliطcaami. marxalada saddexaad ee uu soonku soo maray yahayna hadda waa sida hadda uu yahay, oo ah in uu soomo ama soonka lagu farad yeelo qofka awoodo inuu soomo. sidoo kalena laga khafiifiyo qofka da-da ah,
qofka jiran iyo qofka socotada ah iyo dadka markaa soonka aan awoodin. in lagu waajibiyo cala almustatiic qofka soonka awooda marxaladana waa midda hadda uu yahay. su-aasha ugu dambaysa ee aynu xalqadeennan oga jawaabayno waxaa weeye soonku waa meeqa qaybood? soonku guud ahaan waa 2 qaybood, waajib iyo sunno. waajibun wa mustaxabun. soon waajib ah iyo soon sunno ah. soonka waajibka ah waa midka haddii laga tago lagu dambaabayo, hadhowna la doonayo in la qadeeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dayntiisii la gudo. soonka sunnada ahna waxaan oga jeednaa ama mustaxabkana waxaynu oga jeednaa soonka aan waajibka kugu ahayn, laakiin haddii aad soonto aad rido rabbi iyo thawaab iyo jannaatu cadnin insha allahu aad ku helayso. soonka sunnada ah dib baynu u dhigan doonaahe. soonka waajibka ah ayaa wuxuu u qaybsamaa 3 qaybood. 3 qaybood ayuu ka kooban yahay soonka waajibka ah. qaybta koobaad waxaa weeye sawmu ramadaana. bisha ramadaan soonkeedu waa waajib, waana fardu cayn, waana min arkaani alislaam. arkaanta iyo tiirarka islaamka uu ku taagan yahay ayuu mid ka yahay, waana ijmaac. ilaahina subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum. soonka kale ee waajibka noqonayo waa sawmu nadri, oo ah qofku inuu dhaarto maalan oo uu yidhaahdo ilaahayow haddii aan waxaa iyo waxaas helo, haddaad i caafiso maalan intaasoo maalmood ayaan soomayaa. nadarku waajib buu noqonayaa, soon waajib ah. yuufuuna binnadri buu ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku yidhi, waa kuwa nadarkooda oofiya oo sooma macnaha. soonka kale ee waajibka ah waxaa weeye sawmu lkafaaraat. soon loo yaqaano sawmu lkafaaraat oo ah maalan qofkii wuu dhaartay qofkii, wixii uu ka dhaartay buu sameeyey. marka wixii uu ka dhaartay ayuu sameeyey, qofka isaga ah kafaara gud baa lagu leeyahay inuu 3 maalmood soomo. waxaa ka mid a kafaaraadka qofka haddii maalan maalin ramadaan ah uu xaaskiisa u tago oo uu ku dhaco oo ay meeshaasi galmo ka dhacdo, qofka isaga ah soonkiisa horta waa burayaa. haddii hadhow marka waxaa lagu leeyahay qofka kafaaro. soonkii horta wuu gudayaa, mar koobaad wuu qadaynayaa, ilaahayna wuu u toobad keenayaa sidaan u tegi doono. wuxuu kaloo samaynayaa kafaaro ayaa ku waajibaysa adag oo la yiraahdo, oo ah macnaheedu uu yahay siyaamu shahrayni mutataabicayni. 2 bilood oo xiriir ah in uu soomo. waxaa kale oo soonka kafaara gudka ah aad buu u fara badan yahay, laakiin sawmul kafaaraadna isna waa waajib. 3 qaybood ayuu soonka waajibka u qaybsamaa. halkaa waxaa inoogu gabagaboobay ayuha alaxiba xalqadii koobaad, qaybtii koobaad ee barnaamijkeennii daawada ramadaanka. inta aynu oga kulmi doono xalqadan mid aan ahayn, waxaan idinkaga tegayaa bixifdi illaahi wa ricaayatih. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام